ciidamo maleeshiya beeleed ah ayaa weerar culus ku qaaday saldhig ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab, iyadoo halkaas dagaal ka dhacayna faahfaahinno kala duwan ay ka soo baxayaan khasaaraha ka dhashay. Faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ciidamo maleeshiya beeleed ah ay ku qaadeen fariisinkii ururka Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Booco oo qiyaastii 40 kiiloomitir dhanka koonfureed kaga beegan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Dagaalka oo ka dhacay xarunta maxkamadda Shabaab iyo saldhigga ay ku leeyihiin deegaanka ayaa lagu dilay ku dhowaad 8 dagaalame oo Shabaab ah sida ay xaqiijiyeen ilo deegaanka ka mid ah. Waxaa jira khasaare kale oo soo gaaray dad rayid ah. Dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamo maleeshiya beeleed ah ay weerar gaadmaha ku qaadeen xarunta maxkamadda oo xilligaasi ay Shabaab dacwad ku qaadayeen iyo saldhigga deegaanka Booco, waxaana uu dagaalkan salka ku hayaa dilka ganacsade Macalin Maxamuud Cali Dheere oo 27kii bishii tagtay ka dhacay Beledweyne, iyadoo faahfaahinada ay sheegayaan in laga cabsi qabo in dirirta ay sii socoto. Ma jiro dhinaca Al-Shabaab weli wax war ah oo ka soo baxay.